بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوديال إديجسيال كسودي وهذا برامجكي جارك يعني كل فقريني arrimaha bulshada. Barnaamijka maanta waxaan ku qaadadhigi doonaa wax soo saarka dalagga ama beeraha. Barnaamijka maanta waxaa martigu ah falanqeeye aqoon-yahan Ustaad Axmed Nuur Xaashi. Marka hore waxaan leeyahay kusoo dhawow barnaamijka. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa stuudiyahaada si toos aad kaga daawanayno MX Musa ama waxa loo yaqaano Maxamed Bakistani YouTube-kiisa. Waxaan maanta aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sharaftani qiimaha iyo qaayaha badan oo halkan igu soo dhawey. aad baad u mahadsantahay Ustaad aqoon-yahan falanqeeye ah. waan kaga mahadcelinayaa sida wacan aad waqtigaada qaali aad igu hortay inaad igala qayb qaadato sare u qaadista sidoo kale bulshadana qayb weyn ka qaadanayso barnaamijka. maanta si gaar ah waxaan u falanqeyn doonaa wax soo saarka dalagga. halka aad naga daawanaysaane waa barta YouTube-ka Mohamed Bakistani. barnaamijka ayaan guda geli doonaa. Ustaad, marka hore su-aasha ugu horeyso aan barnaamijkan ku daafurayno waxay noqonaysaa sida tan: maxaa keenay inuu hoos u dhaco wax soo saarka beeraha? beeraha sidaa ognahay dalaggu ama beeraleyda in badan wax badan oo kamid ay ka cawanayaan, bal inoo falanqeey dhibaatooyinkaas ee hoos u dhaca keenay. adoo maasan. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. haddaan u guda galo hoos u dhaca waxyaabaha keeni karaya hoos u dhaca dalagga beeraha way aad iyo aad ay faro badan tahay. halkan laguma soo koobi kara, laakiin haddaan ka qaadano qodobooyin oo xusan dadka aad iyo aadna ay u fahmi karayaan, waxaa ka mid ah biyo la-aan oo ku dhacda beeraha waxay sababi karaysaa inuu dalaggii yaraado. waxaa sababi karaya oo kaleenta fatahaada webiga sameeyo, iyadana waxaa ka dhalan karaysa hoos u dhaca beerahana iyo dalagyadii kasoo baxayay ee ku intifaaci lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. waxaa kaloo aan ku sababay karaynaa oo kaleento in ay hoos u dhaca keeni karayda dalaggii lagu abuurinayay beerta oo lagu soo celceliyo, ayadana waxaa keeni karaysa hoos u dhac ay ku imaado dalagga beeraha. aad baad u mahadsan tahay Ustaad. su-aasha xigta waxay noqonaysaa sida tan: sidee baa sare loogu qaadi karaa hoos u dhacaasi? hoos u dhacaasi aad tilmaantay runtii waa factors aad u fara badan sida noo sheegtay ayaa sababayo. marka hoos u dhacaasi sidee baa loo yareyn karayaa? aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaa loo yareyn karayaa siyaabooyin aad u fara badan. waxaa ka mid ah siyaabooyinkaasi number 1 waa in markaasi beerta laga ilaaliyaa inay ku dhaca soil erosion ama inuu ku dhaca nabad guurka carrada inuu ku dhaca. waxaa kaloo loogu ilaali karaa waxaa loo yaqaanaa carrada inay noqoto mid aan fertile ahayn oo aan kala jeedo mid aan bacrimsanayn. bacrimintaasina marka waxaa sabab u noqon karaysa markaasi inay beertii hoos u dhac ku imaado. dalagii oo had iyo jeer maantoo kale ama fusuulkani waxaan beertay geley baan beeray. geleydii maadaama aan beeray haddana waxaan ku celiyay geleydii baan ku celiyay. waxaa halkaasi ka dhalanaya markaasi celceliskaasi faraha badan in ay ku dhacdo beertan dhahay markaasi hoos u dhac careed. marka loo fiiriyo carradii fiicneed oo aad alkuraad u fiicneed oo dalagyo fara badan oo kala nuuc haddii lagu abuuri lahaa ee carradaasi noqon lahayd mid aad u fiican, maadaama lagu celceliyey geleydii ama shay had iyo jeer tikraar looga dhigo. waxaa kaleeto ayadana hoos u dhac keeni karaya waxaa ka mid ah
iyo sidii loogu markaasi sare qaadi lahaa waxaa ka mid ah in carradaasi ku dhacday fertilization la-aanta ku dhacday waxaa lagu sare qaadi karaa in lagu beero diirtaasi marka waxay markii la gurto ay qaleel noqoto xididaheedii ay qaleel noqdaan in lagu carragediyo. Carragedintii markaasi lagu sameeyo carradaasi waxaa ka dhalanaya inay carradii noqoto mid ay hesho nafaqo ay ka hesho. waxaa kaloo lagu sameyn karaa oo kaleeto in ama lagu sare qaadi karaa waxaa kamid ah in la sameeyo digada ariga oo kaleeto in lagu markaasi lagu dabagediyo carradii oo markaasi ay noqoto carrada mid ay bacrimsanto. midda kaleetana waxaa kaloo lagu sare qaadi karaa oo kamid ah in la sameeyo sida bocorka iyo yaanyada xididaheeda oo kale yaanyadoo kaleeto markay la gurto haraadiga ka haray in lagu dabagediyo. waxaa kalooto haddana carrada saameyn fiican ka qaadan karaya had iyo jeer carrada in la geliyo makiin la geliyo. makiintaasi marka waxay ka dhalanaysaa carradaasi dabagedinta lagu sameynayo ama la rogayo inay carrada hesho carrada nafaqadii hoos ku jirta inay kor usoo imaado. isaad aad umaasan tahay waana kaaga mahadcelinayaa sida wacan aad su-aalahaas u bidhaamisay. aan rajeynayo in badan oo kamid ah degeystayaasha ay ka fahmeen wax badanna ay rajeynaya inay kuwaana qaadan doonaan beeraley badanne wax badan ay iskaga bedeli doonaan. su-aasha xigta aan doonayna ku weydiiyo waxay tahay sidee bay saameyn ugu leeyihiin hay-adaha wax soo saarka dalagga? saan ognahay hay-ado badan ayaa waxay ka shaqeeyaan dhanka iyo inay qeybiyaan cuntooyin. haddaba